الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى قرآنك وحو إنه قسي تساليال فربضا وحالت كستون مرينه إنون نقون كرت إفتينكي أن كمري لهين وحكستو تشيرنا أن كجد بلهين. اللهنا تبارك وتعالى تصالياش وقرآن كإنه قسي وحكم إذا قارن كسو شيئنا خطبة دي هوري إيه قارن ديبك الشيء دولنا وحسكم إذا لبق الصو وخطبة إن شاء الله تعالى أن كوكا بصندونا تهوري وقصة نمانكي سحرب أهاي فرعون لشقين شري نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركي كلمان وحقي أعدادي ويسجودين وحقي بيقاتين. فرعون إله نمدو الشيغين يويكو كفريا مركينا وين إنكيران إسلام مركيب. فرعون مركو أركي تلذي إني دنع أبضتي علمدي سينا أي الله الرميين إساقينا أي كتاقين سيدا مدحد أهل الباطل كبائيه وحو بالله بيئنو هنشبه وكوي لهذا موحد رميسين موسى وحو وتيئات رميسين صوما أنيقون إذين إدمن عددو دا ما أهانشرين وحوسا إدمن إنا كنت لابسدان ساسرات يدبو الله يابي ورساد الرميسين إذين كون إذن إويدين كأن واحد مدائنو بهيو حقه هدو إذين عدادي حتى وحي أهد إنتاد يقصوا النقطان إنا الضهدان محايا لنا حقي دان كانوا أبطي وضينا إذن إويديستان مركزوا بالله بإن أهنجبوا وحويلي كعمها إيا اللغة نسي إصدافان إذين قوين ميت كيننا قيدها تمرتا صلكودان كسل بين وكد الدلي halkaasaadna muddo ku xidhnaan doontaan waadna ogaan doontaan maxamed ila muuse rabbiga uu sheegayo eed rumayseen iyo aniga kaanaga cadaab adag cadaabkiisuna uu joogid badan yahay waad ogaan doontaan buudi. Allahu akbar. waa cusub yihiin hadda bay rumeeyeen iimaanku mar dhow qalbigooda galay dad wax badan soo ogaaday ma aha islaamka muddo dheer mayna ku soo jirin بمجرد أي إيمانك قاتين بوحا كتمد موجدا هنجباد فرعون ويقانان يبأس كيسي جبروت كيسي كبر كيسي عذاب كيس أين أرين الله يلسن كرما لكن الله تبارك وتعالى مركو روح قلبي كيسي إيمانك سيدب أقليه وحيابها زي مغضان وحيكو لهذين كاب دورا مينو آياتك عد آنو أرقني موسى وتو iyo allihiina abuuray abuuristanada bilaabay ka dooran mayno fircawnow oo iyaga intaan ka tagno adiga inaan ku raacno marna ha filin mar haday sidaa tahay oo naan soo noqonaynin xaqi baa noo cadaaday faqdi ma anta qaad bay ku dhahan waxaad ka badin weydayeen waxaad samayn kartana samee hadaadna dilayso hadaadna ciqaabayso hadaadna xidhayso hadaad wax alla waxaad ka badin weydayeen. لماذا؟ لأن واحد سمين سواء الدنيا كأجيه هذيب الدنيا أن ضافنا دبك أن نجوه سيوا ضمانة يا هذي أن لمن نبع عذاب كاجي نلص عن مايو أنت سكويجي آخر سه إله عذاب كيسو دائما تشره عذاب دائم وآخرت شره يوحوغا عقابه النفط إلى تكتئون كان يو الدنيا أنا لسكم بدشوا عقل بان لنا يكونه رالهو waxaad ka badin weydayeen Allah baan rumaynay xaqi baan aragnay jannaanu raadinayna cadaab baan cararkanahay fircoon waxaad ka badin weydayeen. Allahu akbar. quwwa awood wa xog sabat sugnaanshawi tanoocaas oo kaleeta waxa laga helaa oo maanta waxa laga leeyahay maanta dadkii islaamnimada ku dhashay mujtamaca muslimka ku koray ilaahay diinta ugu nimceeyay da'da ku gaaray shuyuuqdii odayaasha ku noqday ay muxuu ahay duqaytida ku noqday ba maanta laga kari laahay war diintiina ku sugnaado ku dhinta dadkana ayagoo iimaankooda cusub yahay
ayay haddana maca daalika waxay ka doorbideen inay iimaankiiyo xaqa ku dhintaan lianna waxay rumeeyeen iimaankiiyo xaqoo lagu dhintaayay inay ka roon tahay gaalnimo iyo kufri inaad ku noolaato qiso cajo badan oo mudan weeye inaynu ku dayanno sabaadka iyo sugnaanta mabaadi'da iyo sawaabidda shareecada inaynaan ka tanaasulin siday dooni ha noqoto xalku wixii lagu samaynaya adduunka waa wax dhammaanaya haddii lagu xidhana waa dhammaanaya haddii lagu dilana waa wax dhammaanaya haddii lagu ciqaabana waa wax dhammaanaya wax joogaya oo weligii kula soconaya ma aha ee ha ku bedelanin cuquubada iyo cadaabka ilaahay agtiisa yaalla tabaaraka wa tacaala ee daa'imka ah qisada labaad waa qisadii kacb bin malik radi allahu canhu fi saxiixayn qisadu way dheer tahay laakiin intaa qasadkeen ka leenahay waxa weeye nebigu sal lla lay waslam duulaankii tabuuk markuu u baxay rag fara badan oo 280 nin oo munaafiqiin u badnaabaa ka hadhay oo duulaankii ka hadhay markuu nebigu duulaankii ka soo noqday sal lla lay wasalam rag badan baa u yimid oo u cudurdaartay way cudurdaarteen wayna dhaarteen munaafiqiintii dhaartoodii waxoodii waa aqbalay uu iska daayey waxay qarsadanayaanna ilaahay buu u daayay tabaaraka wa tacaala 3 nin oo Kacb bin Malik ka mid yahay ayaa iyaga waxaa la yidhi idinka arrinkiisa inta ilaahay ka xukumayo ka iska tagalay Kacb wuxuu leeyahay muddo markii laga joogay baa nabigu wareegtu soo rogay amar wuxuu bixiyay muslimiinta ahad kamida inuu sanala hadlin saddexdan in mawjidaan lama hadli karo hal kelima lagu lama hadli karo amar nabigu soo saaray amarkaasi markuu soo baxay dadkii waa naga aamuseen buu wax nala hadlay ma jiro xataa salaamtana laga ma qaaday salaamu alaykum shib labadii nin ee saaxiibada ahaa buu iyagu niman odayaal ay ahaayeen guryahooda iska fadhiisteen oo meeshaasay oohin iyo ilmadu ka qubanaysaayoo rafaad halkaas ku haysta iyagu dhaqdhaqaaq ma sameyn anigu laakiin wuxuu yiri ragga waana ugu da'yaraa waana ugu xoog badnaayo guri ma fadhiisan karin waan soo bixiyo markaasaan imaanaya masaajidoo dadkan kula tukanayay suuqiyadan marahayo wareegahayo dadkan la joogay haddana maca dalika ahad salaanta iga qaadayo ama islaamaya ma arkayo nabigaan u imaan buu yiri sallallahu alayhi wasallam asagoo meeshii salaada uu ku tukaday fadhiya markaasaan salaami assalaamu alayka ya rasuulallah markaasaan balbishiyihiisa fiirin buu bal inuu salaanta iga qaaday talo salaantii ma ka qaaday mise kaama qaadin salaada markuu gala agtiisaan ku soo xidhan buu waan ku agtiisaan salaada ku gali markaasaan fiirada ku xadi bal wax yar inuu ku soo fiiriyo markaan salaadayda isaga jeesadana wuu soo jaleeci buu markaan asaga fiiriyana wuu iga jeesan buu xalku waa adkaaday waa igu dheeraaday buu arintii waa ugu dheeraatay waa xamili weynay ilaa markii dambe wuxuu intaan iska dhaqaaqay ninaan ilmaadeer ahayn oo dadkan aan ugu jeclaayo oo Qataada la dhihi jiray ayaan darbi uu lahaa baan fuulay oo markaasaan ka dhacay isagii baan u galay markaasaan waxa uu yaa qaba Qataada salaamay salaantii markuu salaamayna wiiga aamusay buu waa dad ninku ugu jeclaa waana inaadeerkii shib markaasaan waxa uu yaa aba Qataada anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu abu Qataada ilaahay baan kugu dhaariye ma ii ogtahay inaan ilaahay iyo rasuulkiisa jeclahay waa bayga aamusay buu hatta ha iyo mayaba u roonaan lahayd maya hatta way dhaami lahayd shib waan ku celiyay buu waan dhaariyay hadana waa iga aamusay buu mar saddexaad baan dhaariyay waa iga aamusay buu aakhir markii ugu dambeysay ee saddexaad buu wuxuu yiri ilaahay iyo rasuulkiisa og warka inuu la sii sheekeeyo ma barrooba war badan inuu la sii wadwado ma rabo waa loo soo gaabiyo waxa la yiri ilaahay iyo rasuulkiisa og markaasaan indhaha hayn waayo ilma iqubatay buu waan ooyay kadibna intaan jeesadoon laabtay baan darbigii dib u fuulan iska noqday buu